kulantii habboon idil ahaantiin baad ogodayaal meel weliba waad ka joogtaan dafaha caalamka. halkan waa raadsan t v. qodobada wararkeena ugu duroona waxaa qeybka cabdirashiid janan uu qaaday 2 tallaabo oo xoogan ka gadaal tagitaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee gudaha magaalada Kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. waxaanu idiin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo qorshayaal markaasi uu damacsan yahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo duligtay cabdirashiid janan si markaasi uusan uga baxsan xarada dowladda federaalka Soomaaliya. waxba kale ah daawad doontaan isla markaana aan idinku soo gudbin doono barnaamijkan waxaa qayb ka noqonaya mucaaradka oo si weyn u dhaliilay tallaabada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tagay gudaha magaalada Kismaayo. waxaanu idiin soo baahin doonaa Dani iyo Cabdiraxmaan Ciro oo ku dhawaaqay go'aan culus oo guud ahaanba meesha ka saari kara dowladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale tallaabooyin culus oo ka dhana xukuumadda talada joogta ayaanu idiin soo baahin doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan ee daawada hadday tahay markaygu kugu horeysay aa soo booqato halkan subscribe noo saarno like gara muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aanu si aanba qaadno. wararka laga helayo deegaanada gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo dheeraad ah ay ku daabulayso gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi gaar ahaan magaalada Balad Xawe ee uu ku sugan yahay cabdirashiid janan. warar soo baxaya ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeeyay cabdirashiid janan uu la kulmayay saraakiil ka socota dowladda waddankaasi Kenya kuwaasi oo kulamo aan joogsi lahayn halkaasi kula qaadanayay. hadda xaaladdu waxaa la tilmaamayaa inay weji kala yeelatay ka gadaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waa barigii hore ee saaka ka degay gudaha magaalada Kismaayo. kulamo aan kala joogsi lahayn oo ka soconaya halkaasi ayaana sababay in cabdirashiid janan guud ahaanba uu xanaaqo ka gadaal markii ballanka ay uga baxday xukuumadda talada joogta. waxaa la tilmaamayaa hadda inuu qorsheynayo inuu ka baxo xerada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu u gudbo dhanka iyo dowladda waddankaasi Kenya. ka gadaal waxa uu wada hadallo la furi doonaa dhinaca iyo Jubbaland si deegaanadiisa uu xoojiyo isla markaana waxaa la tilmaamayaa dhawaana uu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin dhaqdhaqaaq waliba oo aanan ka tarjumaynin qorshaha iyo rabitaanka dadka ku nool deegaanada gobolka Gedo. waxaa la tilmaamayaa hadda inuu kulamo ka wado deegaano ka tirsan magaalada Balad Xawe iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada. waxaana la tilmaamayaa qorshuhu inuu yahay guud ahaanba laga arinsado gobolka iyo xaaladiisa maadaama Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay hadda heshiinayaan isla markaana iyagu wada hadlaya. beesha Mareexaan ee degta halkaasi ayaa isimada iyo sidoo kale salaadiintooda iyo siyaabooyin kala duwan ula kulmayay saacadii ugu dambeeyay cabdirashiid janan waxaana uu kala hadlayay suurtagalnimada iyagu uga tashan karaan ayahooda iyagoo aan dad u daba fadhin. horey dowladda federaalka Soomaaliya beesha Mareexaan ballan ayay ula gashay oo ah in guud ahaanba loo dhisayo maamul kaligood ah maamulkaasi oo laga yegleelayo deegaano ka tirsan gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalada Garbahare ee xarunta gobolkaasi Gedo. waxaana la tilmaamayaa in hadda guud ahaanba ballamadii la galay ee beeshaasi lala galay guud ahaanba xukuumaddu ay ka baxday isla markaana ay la heshiinayso dhanka iyo Madoobe. waxaana la tilmaamayaa hadda tallaabadu inay wajiyo kala duwan yeelanayso isla markaana dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasi ka soconaya. Madoobe waxaa la tilmaamayaa in ay ku jiraan qodobada guud ahaanba uu doonayo in la soo qabto cabdirashiid janan isla markaana xabsiga la dhigo maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay u adeegsatay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xawe waxayna u aqoonsanaysaa dowladda inuu yahay dambiile. waxaa la tilmaamayaa tallaabadaasi inay tahay mid ka mid ah qorshaha wada hadallada markaasi dhex maraya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Madoobe. labada dhinac maalmihii ugu dambeeyay waxay ka wada shaqeynayeen guud ahaanba sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa la tilmaamayaa in iyadu markaasi qorshayaal dhowr ay kaga tanaasuleysa maamulka Jubbaland. aqoonsiga Jubbaland ayaana la tilmaamayaa in guud ahaanba wax waliba uu ka tarjumayo. dowladda federaalka Soomaaliya maanta bageedu kuma soo daawacin isla markaana kuma sheegeen boga villa Soomaaliya in guud ahaanba Madoobe uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. carabkeeduna way ka ilaalaysaa. waxaa la tilmaamayaa isla markaana la isweydiinayaa Axmed Madoobe ama Xasan Sheekh sidoo ula fariisan karaa nin uusan aqoonsanayn isla markaana madaxweyne maamul goboleed uusan aqoonsanayn sidoo ula fariisan karaa isla markaana ula xaaltami karaa kagala hadli karaana arrimaha la xiriira mustaqbalka deegaanada Jubbaland. waxaa la isweydiinayaa isla markaana isweydiinayaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu inay tahay tallaabadaasi mid aan loo qaateynayn isla markaana madaxweynaha iyo xukuumadduba ay ku fududaanayaan
kahor ayaa la rabay ayay leeyihiin in laga sii gungaaro waxa markaasi lagu soo qoraya bogaga kala duwan ee warbaahinta dowladda. Waxaa la tilmaamayaa hadda in ceeb la dhex fadhiyo isla markaana Jubbaland qudheedu ay tallaabadaasi ka carootay muuqaalada madaxweynaha iyo sawirkiisana ilaa iyo hadda aysan baahin sababo la xiriira qoraalkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn Jubbaland u carar geliyay. waxaa la tilmaamayaa isla markaana ay dorosayaan dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda xaaladdu inay hadda ku socoto meel halis ah isla markaana aan la sii fiirsan karaynin waxa markaasi ka dhex soconaya dhinacyadu. waxaase la tilmaamayaa hadda xaaladda ka jirta magaalada Kismaayo in taagtaag ku hoggaanay halkaasi uu ka jiro isla markaana dhinacyadu aysan maangal ahayn hadda in guud ahaanba ay iyaguna ka wada arrinsadaan arrin waliba uu markaasi dhinac waliba uu markaasi filayo. waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba wada hadalladu ay qarka u saaran yihiin inay si hor u dhici u fashilmaan maadaama aysan jirin kulan duceedyo ay dhinacyadu markaasi wada qaadanaya. waxaa la tilmaamayaa madaxweynuhu in la geeyo hoyga martida isla markaana halkaasi uu ku sugan yahay wixii caawa ka dambeeyana wada hadalladu ay furmi doonaan. haddase waxaa la tilmaamayaa in wada hadallo hordhaca aysan dhicin waxaase guud ahaanba wada hadallada baalfurkoodii ku ciyaaray dowladda iyo xukuumadda talada joogta oo iyadu markaasi madooba markaasi u aqoonsatay inuusan ahayn madaxweyne maamul goboleed isla markaana aanan isaga marti loo ahayn. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay culeys badani keentay isla markaana dhinacyadu ay si weyn usii kala fogaysay. marmii ugu dambeeyay dowladda federaalku waxay isku dayeysay in xal waara laga gaaro khilaafka ka dhex xoogan Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya siyaabooyin kala duwan ayayna isugu dayeysay. hadda waxaa la tilmaamayaa marka maadaama wada hadaladii la guda galay in wax waliba si dhimir la'aan aysan u qorin dowladda ay eegto dhinaca markaasi positive-ka ay ka eegto si xal waara looga gaaro. waxaase la tilmaamayaa hadda xaaladdu inay wajiyo kala duwan yeelanayso. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana la tilmaamaya inay xaaladdu ku xun tahay isla markaana uu ku sugan yahay gudaha magaalada Kismaayo. waxaana maangala saacadaha soo aadan inuu dib isaga soo laabtay magaalada Muqdisho maadaama madooba uusan qorsheynayna marnaba inuu kala hadlo arrimo la xiriira guud ahaanba sida laga yeelayo doorashooyinka iyo wax ka bedelka dastuurka maadaama muddaxileedkiisu uusan aqoonsanayn. laba midba way hortaalla madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mid waa inuu ka laabto waarankii soo qabashada ah ee Axmed Maxamed Islaam markaasi loo jaray maadaama uusan imaan karaynin magaalada Muqdisho isla markaana uu ka cabsanayo in xabsi loo dhaadhiciyo maadaama horey waaran soo qabasho uu uga yaalo magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu doonayaa madoobe in uusan guud ahaanba doonayn isagoona la aqoonsan in shir uga qayb galo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. shuruudna waxa uu uga dhigayaa in guud ahaanba la aqoonsado maamulkiisa iyo isagaba waana tallaabo culus oo markaasi uu ku xalaaleysanayo muddo xileed cusub. haddii uu helo muddo xileed cusubna waxaa la tilmaamayaa inuu qaadayo tallaabo waliba oo markaasi rabitaankiisa ku qutuma. markaasi xukuumadda talada joogta waxay dhex fadhin doontaa iyaduna tallaabo ama ka ku noqonaysa bulshada isla markaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si toos ah uga fashilmayaa wada hadallada Jubbaland uu la furay. waxay noqonaysaa hadda xaaladda guud ahaanba mid hadda faraha ka sii baxayso isla markaana dhinacyadu siyaabooyin kala duwan maalmihii ugu dambeeyay ay uga wada shaqaynayeen. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana tallaabadaasi qaaday. gobolka Gedo xaaladiisa weli ma baalfurna waxaase noqonaysaa tallaabo xoogan oo ay dowladda federaalka qaadi doonto walow aanan hadda si horudhaca looga hadli karaynin. waxaase jira tallaabooyin markaasi laga soo saarayo shirkaasi waa haddii la isku afgartay walow aanan la ogeynin aan la isku afgaran doonin kale. Jubbaland waxay doonaysaa iyadu inay qaado tallaabooyin culus oo guud ahaanba iyadu rabitaankeeda ku quseeya ama ku saabsan. dowladda federaalkuna waxay doonaysaa inay qaado tallaabooyin rabitaankeeda quseeya. dhinacyadu mid waliba waxa uu doonayaa in rabitaankiisa uu hirgeliyo walow hadda aanan qorshuhu uga jirin xukuumadda talada joogta in guud ahaanba ay aqoonsato madoobe. haddana waxaa la tilmaamayaa inay ku qasbanaan doonto in guud ahaanba ay aqoonsato madoobe si miiska wada hadalka looga soo celiyo. lama soo oga tallaabooyinkaasi halka ay saldhigan doonaan. guud ahaan intaasi ayaan kusoo meerayaa dawadayaal tan iyo kulan dambe nabadeen.